waayahay maanta dhammaan gobollada Puntland waxaa jooga ciidamo beeleedyo ama kuwa shakhsiyaad gaar ah leeyihiin maxaa dawladda ugu hor istaagay inay dhammaan ciidamadaas hoos keento nidaamka qaranka ama nidaamka dawliga aad iyo aad baa u mahadsan tahay horta markii hubka haddeer qabiilaadku haysto markii si loo fiiriyo dee sharci maaha waa sharci daro mas-uuliyad buuna u baahan yahay laakiin hubka Puntland yaal oo qabiilaadku haysto markii in yar laga reebo hubka loo baxsado weeye markii dagaal dhaco hubka loo baxsado sida haddaba dagaalkii aynu ku jirnay oo ugu adkaa iyo kii garacad iyo dagaaladiina soo mara oo mar walba laynagu weerarayay oo Puntland lagu weerarayay hubka qabiilaadku haysto ayaa aad iyo aad iyo aad wax uga qayb qaadan jiray difaaca Puntland walow saa ay uga qayb qaataan oo dalka ay lagu difaaco oo ay wax taraan haddana in aan xilka sahayn oo badan oo haysata oo si xun u isticmaasha waa jidhaay oo iyadana lama beenin karo xilli lagu heshiiyay oo dadka la hubka dhigid baa laydinku sameynaya na Puntland wali ma gaarin laakiin haddeer waxay ku jidhaa qaabkii hubka dhigidda iyadoo aan lagu sameyn dadku hubkooda ay u sharci garaysan lahaayeen oo qofku wuxuu haystana loo ogaan lahaa wixii ku soo siyaadana loo ogaan lahaa loona kontarooli lahaa oo ay arintaasu noqoto hadda mataal yar haddaan ka soo qaado calmiska hubkii qabiilaadku ka qayb galay qofka mataniskiisa hubka rasaastiisa shidaalkiisa ninka hubka wata lacag mushaharkiisa iyo gunadiisa dawladda bixinaysay waana laga faa'iideystay waxyaalaha khasaarada oo keeni karo hubka Puntland yaal waa mas'uuliyad xumada cidda haysa mas'uuliyad xumadeeda weeye laakiin hubka qofka mas'uulka ahayo dhibaato tira badan ma uu keeno aad uma keeno dhibaato badan ama deyrku ugu jiraado dee hubka dhigid dadka laguma sameyn ama meesha mudan oo maartay loogu talagalay buu markaa u dhigaado maartay oo lala aadaa hubkaas